بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى silsiladii kitaabkii shaksiyat almara almuslima, gabadha muslimada sifaadkeeda laga rabo, waxaynu ku dhex jirnay weli fasalkii tobnaad oo ugu dambeeyey oo gabagaba ah. qodobka waxaan ka qaadaynaa marka tascaa bisulxi bayna almuslimaat. gabadha muslimada wanaagga laga doonayo waxaa kamid ah inay noqoto mid dadka walaalaheed, gabdhaha walaalaheeda iyo mujtamaca ay wanaag u gudbiso. waa inay marka noqotaa marka mid u sacyinaysa oo u soconaysa sidii ay dhexdooda wanaag u dhigi lahayd. labadii isku xumaata ama labadii waxa weeye hadal dhex maro, labadii isku caroota, iyadu waxaa la rabaa markaas addacwa ila allah inay ka dhigato oo waxa weye ay noqoto mid waxa weeye islaaxinaysa. islaaxulmujtamacna waxa weye waa wax aada iyo aada u wanaagsan. mujtamaca in la islaaxiyo waa wax aada iyo aada u wanaagsan. haddaba qof walba oo muslima waa laga rabaa, rag iyo dumarba. marka waxaa loo baahan yahay dumarkii maadaama iyagu isku dhex jiraan oo intaa iska warqabaan, inay dhexdooda ay wanaag ay ka shaqeeyaan. nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam, markuu inooga digayey taqaaduca iyo isgoynta iyo kala cararidda, laa yaxilu lirajulin an yahjura mu'mina, an yahjura akhaahu fawqa halaath. saddex beri wax ka badan inuu qofka walaalkiisa gooyo oo waxa weeye uu maaragtay caro iyo xumaan ku kala maqnaadaan ma banaana. hadday 3 beri markaa ay gudubto oo qofkii caradii ka baaba'do, waxaa la rabaa in ay markaa heshiiyaan oo waxa weeye caradii la bedelo. ilaa haddii aynan arrintu ahayn wax markaa waxa weeye diin ku xiriidha, oo matalan qof mubtadica oo diintii kharibaya oo waxa weeye shirki iyo xumaan la yimid, oo qofkii markaa uu banaanka ka maray oo uu iska ilaaliyey waa ka duwan tahay. laakiin wax adduunye iyo wixii lamida khilaaf yaroo dhacay bay dadku isugu xanaaqi karaan. lama rabo marka in la isgooyo oo la kala tago, xataa haddii dagaal dhex maro. markii xataa dagaal dhex maray labadii qof oo muslimiinta ahayd, ilaahay wuxuu amray in heshiis la dhex dhigo. wain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma. haddii laba kooxood oo mu'miniina oo dadkii muslimiinta ah kamid ah haddii dagaal dhex maro, faaslixuu baynahuma ba layidhi. faaslixuu baynahuma, khaasatan faaslixuu baynahuma bilcadli, wanaag iyo cadaalad ku islaaxiya dhexdooda. oo waxa wey intaad dhex gashaan islaax iyo wanaag dhex dhiga. lama rabo inuu qofba qolo uhiiliyo oo markaa dadkii muslimiinta isku baaba'aan, ee waxaa la rabaa faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsiduu ina allaha yuxibu lmuqsidiin. cadaalad baa loo baahan yahay in la dhex dhigo. haddaba marka gabadhii muslimada ahayd hadday aragto laba gabdhood oo walaalaheeda oo xumaani dhex martay oo isku xanaaqay ama waxa weeye isgooyey aan isla hadlaynin, islaax iyo wanaag inay dhex dhigto ayay ka shaqaynaysaa.